magacaygu waa maxamed sacad waxaan deganahay magaalada hargeysa anigoo ka faa'iideysanaya xuska 29aad ee munaasabadda 18 May waxaan ilaahay inooga baryayaa bashbash barwaaqo nabad iyo caafimaad in sanadka dambe ilaahay nagu gaarsiiyo maadaama inaan sanadkan u dabaaldegi karin xafladda iyo maalinta weyn ee xuska 18 May xanuunkan adduunka saameeyay ee COVID-19 dartii waxaan bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan gudaha dibadba ka codsanayaa inay ku deeqaan $1 xuska 18 May dartii inagoo u adeegsanayna ka hortagga xanuunka COVID-19 magacaygu Axmed Maxamed Axmed jooga magaalada Eergaabo dhamaantii waxaan idin rajeynayaa wanaag iyo amni nagula soo biira kaasabahan family ahaan dibaadega sanadii 20 guurada ka soo wareegtay maanta xornimada Soomaaliland ay dib u soo noqotay ka Soomaaliland ahaan waxaan ku qanacsanahay guulaha ay Soomaaliland gaadhay muddada 29 sano ah ee ay tahay horumar nabad iyo midnimo waxaan kaloo u rajeynayaa sanado dambe oo badan oo unity ah jacayl iyo Soomaaliland oo mid ah fadlan xusuusnaada in xanuunka coronavirus uu yahay xanuun dilaa kaasoo caalamka dhan ku faafay waxaad ka qayb qaadan kartana ka qayb qaado haday tahay cod iyo haday tahay lacagba way dalkaaga ayaa ku baahan muwaadin maadaama aynan u dabaaldegi karin sanadkan 18 May xanuunada jira dartood waxaan ka codsanaynaa inaad ugu dabaaldegto inaad ku deeqdo $1 meel kasta oo adduunka aad ka joogto anigu halkaygii waan bixiyay adiguna halkaaga fadlan ugu deeq bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xasan cabdi madar muwaadin dabaaldega xuska 18 May darteed waxaan ka codsanaynaa inaad dalkaaga ugu deeqdo $1 haddaad ka badisana waa wax wanaagsan waxaan rabaa inaan la wadaago hambaliyada 29 guurada ka soo wareegtay la soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda dadka reer Soomaaliland aan leeyahay hambaliyo waxaan kaloon ugu baaqayaa inay ugu deeqaan dalkooda $1 bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed aadan munaasabadda 18 May sanadkan lama qabanayo waxaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan muwaadiniinta reer Soomaaliland happy 18 May sababtaan loo qabanayna waxa weeyaan caabuqa COVID-19 ka waxaan ka codsanaynaa muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta ay joogaanba inay £1 ugu deeqaan wadankooda السلام عليكم happy 18 May please donate $1 السلام عليكم happy 18 May موادين ودكاga $1 السلام عليكم حقنا وعبد الرحمن محمد عدي داود وإن قصة السلامة مقالة ملبورن أستراليا waxaan hayaa jana عبد الرحمن وأنا تيدي وسومالا دردي وقدام بيسي لابا ويك بجرتا waxaan dii rajaynaynaa walaalayaal marka horeysa ciid mubaarak oo ciida 18 May 29 sano ee tagay ilaahay mahadi waxyaabo badan baa inoo qabsoomay midnimo iyo horumar ilaahay waxaan weydiisanaynaa intaan in ka badan dadkeena ummadeenana waxaan leenahay waxaan nahay qabiil kaliya qabiilkaasina waa qabiilka Somaliland wax ka hooseeya ma leh sidaana aska ogaan happy 18 May ilaahay anoo barakeeyo dadkeena Somaliland insha Allah صباحي إلا